السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارته سودو هذا ومركله وبرنامج كله وحكا soo baxay maxkamadda Supreme Court-ga dalkan Mareykanka laba qodob oo saameynaya dad fara badan oo ku nool dalkan Mareykanka labadaas qodob ayaa waxa ay kala ahaayeen qodob hadda ka hor madaxweyne Trump judge kamid ah judge-ka federaaliga ah ee dalkan Mareykanka uu ku soo rogay amarkaas ayaa waxa uu ahaa in dowladda federaalka ah waaxdeeda amniga ee DHS-ka loo yaqaano ama Department of Homeland Security aysan awood u lahayn madaxweynaha naftiisana uusan awood u lahayn in wadamada qaar intuu si gooniya u bartilmaameedsado uu kala noqdo programkii ay ku joogeen dalka Mareykanka oo ahaa programka sida kumeel gaarka ah inta dalkoodii uu ka hagaagayo ay dalka ku sii joogi karaan a temporary protected status la dhihi jiray programka isaga ah wuxuu damcay hadda ka hor madaxweynaha in uu kala noqdo wadamada Haiti, Somalia, Ethiopia, Eritrea wadamo badan ayuu kala laabtay marka arrinka isaga ah Syria ku soo dar wadamadaas judge ayaa kaga daba dhuftay oo federaali ah judge-kaas ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha uusan awood u lahayn keligii inuu go'aan ka gaaro arrimaha noocaas ah oo programka TBS-ka waxa markii horeba bixiyey buu yiri judge-kaas uu ku dooday waxa bixiyey Congress-ka dalka Mareykanka Congress-ka ayaan awood u leh buu yiri aqalka hoose in ay dib ula noqdaan iyo inay daayaan haddaba arrinkii isaga ahaa Trump iyo xertiisa oo aad sida saa'idka uga soo horjeeda dadka soo galootiga ah waxa ay go'aansadeen in ay maxkamadda racfaanka ee federaaliga ah ay aadaan maxkamaddii federaaliga ahayd ee racfaanka oo tan ka sarreysay district court-ga ahayd waxa ay ku raacday maxkamaddii hoose waxa marka ugu dambeyntii ay noqotay in la aado maxkamadda ugu sarreysa dalka ee Supreme Court-ga marka Supreme Court-ga sida aad ogtihiinba intiina badan ee siyaasadda iyo akhbaaraha iyo wararka la socdaba waxa ay u janjeertaa oo markasto dhankiisa ay xigtaa madaxweynaha Mareykanka maadaama justiceska ama xaakimada ugu badan jooga ay soo magacaabeen xisbiga jamhuuriga waxa hadda badanaa ay u codeeyaan 6 iyo 3 waa 9 justice oo 9 xaakim ayaa fadhida laakiin waxay u codeeyaan 6 iyo 3 macnaheeduna waxa weeye saddexdaas dimuqraadiyiin ay soo magacaabeen mid waa dhexdhexaad inta kalena waa Republican kan dhexdhexaadka taa wuxuu iskala codeeyaa markuu numberka ka bato wuxuu iskala codeeyaa qolyaha jamhuuriga ah marka shalay waxa ay laba qodob oo guul u ah madaxweyne Trump iyo xertiisa ay soo saareen halka saddexda judge oo kalena ay ku andacoodeen in inkastoo laga awood batay haddana ay fikirkooda ay la wadaageen qodobkaas marka waxa waaye dowladda federaalka ah ee Mareykanka ama xukuumadda oo executive-ka ah waxay awood u leedahay bay yiraahdeen in programka TPS-ka waddanka ay rabto ay kala noqoto dadka ay rabto iyo community-ga ay rabtana ay kala noqoto marka arrinka isaga ah awooddaas dheeraadka ah oo la soo siiyey madaxweynaha waa guul sababtoo ah wadamadii uu horey ogala laabtay ayay u dhaarsan yihiin already inay dib intay ogala laabtaan dadkoodana ay tarxiilaan waddanka ugu weyn hadeer oo shalay ninka hataa ugu sarreeya ciidamada xuduudaha ilaaliya ee border patrolka Tom Homan oo sheegay ay u dhaarsan yihiin sida goonida ah oo waddanka Haiti dad fara badan ayaa ka degan dalka Mareykanka waa dadkii ay ka dhalatay xilligii campaign-ka lagu jiray in ay madaxweynaha ku sheegay inay yaanyuurada cunaan oo Ohio ay cadaadis badan ku hayaan dhaqaalihii iyo ceyrtii iyo wixii ay ka baaba'sheen laakiin keligood ma ahayn wadamo badan oo kale lagala laabtay Soomaaliya ka mid ahayd Syria ka mid ahayd Eritrea ka mid ahayd Ethiopia ka mid ahayd marka wadamo badan oo kale lagala laabtay TPS programka marka TPS programka waxa uu muhiimka u yahay haddaan idin sheego qofka markii Mareykanka uu intuu derbiga ka soo boodo ama viisaba uu ku yimaado oo viisihii uu ka dhaco
ama derbi kaboodba uu noqdo haddii uu sharciga ay u diidaan oo kale oo jaajka uu ku qanci waayo dacwaddii aad soo qoratay waxaa xaraysan kartaa isla markiiba TPS program ama temporary protected status baa la yidhahdaa waa si kumeel gaar ah inta dalkaaga uu ka hagaagayo oo uu ka soo bogsanayo dhibaatooyinkii ku habsaday baa kusii joogi kartaa Maraykanka marka dad waxaa jiro Soomaaliya ilaa 1993 si sharci ah uga shaqaysanaya Maraykanka si sharciya ku joogay sharci buuxa oo weynna aanan ku lahayn dalka Maraykanka programka waxay ku joogeen TPS programkay ku joogeen marka arrinka isaga ah waxa uu keenay dadka in haddeer loo ogolaado dowladda federaalka ah qolada ay doonto in ay kala laaban karto aynasan u baahnayn in Congress-ka ay ka soo qaadato ogolaansho ama waxa loo yaqaano congressional approval lama baahna bay yiraahdeen waxa awood ay u yeelanayaan Trump iyo xirtiisa iyo qolyahan iswata oo kulligoodba anti immigrationka iska ah oo immigrationka ka soo horjeeda inay awood u yeelanayaan inay kala laabtaan dadka sharciyada oo arrinka isaga ah sidaas ayaa horta ay dubaha ugu dhufatay waxaadna ogtihiin Supreme Courtiga maxkamadda ugu sareysa Maraykanka weeye meel kale oo la aado ma jirto loogama daba dhufto go'aanka ay soo saartana sidaas ayuu ku yahay ansax qodobkaas waa qodobka labaad oo iyana loo ogolaaday madaxweynaha Maraykanka xirtiisa iyo xukuumaddiisaba waxa weeye in policy hadda ka hor uu ku maamuli jiray tookadiisii hore markii uu qabtay madaxweynenimada ayaa waxa uu soo rogay in xuduudda koonfureed ee Maraykanka oo Mexico inaga xigto dadkana badankood ay derbi kaboodka ka soo galaan in cid ka soo gudbi karta aysan jirin qofkii raba sharci inuu helo sharci wuxuu soo rogay ahayd in stay in Mexico policy la yiraahdo siyaasaddaas iyada ah tookadiisii hore oo 2016kii ilaa 2020kii 2016 ilaa 2020kii markuu xukumayay sharcigaas ayuu isticmaalay waxaana ay hoos u dhac weyn ku keentay baa la yiri dadkii derbiga ka soo boodayay oo Mexico ka soo galayay dhankeeda oo xuduudda koonfureed haddaba haddeer wuxuu sameeyey madaxweynaha mar kale codsi ayuu dhigtay ayaan dhaweyto sidaas si lamid ah isaga iyo maxkamadaha dalka Maraykanka maadaama laba laan oo ay kala yihiin judicial iyo executive ay kala yihiin oo isbalance gareeya waxa uu ayaan dhaweyto judge baa wuxuu soo rogay in qofka nabadgelyo doonka ah magangelyo doonka ah oo dhibaato ka cabanayo oo xaaladda ay ku adag tahay dalkiisa nabad aysan ka jirin oo xuduudda yimaada in loo ogolaado dalka inuu soo galo iyo in loo ogolaado inuu asylum uu codsi uu samaysto arrinka isaga ah markay sidaas oo cad ee u dhacday ayaa waxaa haddana racfaan ka qaatay dowladda federaalka ah Trump racfaankiina wuxuu sababay in haddana mar labaad maxkamadda ugu sarreysa ee Supreme Courtiga laisla tago shalay oo sida aan idin sheegay oo ahayd Jimce 26 bisha June 2026 waxaa haddana mar labaad maxkamadda Supreme Courtiga ay u codeeyeen in dowladda federaalka ah xukuumaddeeda Maraykanka ay awood u leedahay in iyada go'aamiso policygaas inay dib u soo boorka uga jafi karto ayna ku saxsanayd in dadka ay ka diido xuduudda qof kasta oo xuduudda koonfureed dalka ama southern borderka Mexico laga soo galo laga qabto waxaa loo diidayaa inuu isdhiibo waxaana la tarxiilaya dalkii uu ka imaaday ayaa lagu celinaya haddii aad rabto inaad aan lagu tarxiilin lagu qabanin Mexico ha soo dhaafin marka policygaas isaga ah tookadii hore ee madaxweyne Trump way u shaqaysay tookadana sidii si lamid ah ayuu madaxweynaha uu rabaa inuu haddana soo rogo marka arrinkaasna waxaa ku raacday maxkamadda Supreme Courtiga way u ogolaatay madaxweynaha in policygaas mar labaad uu isticmaali karo oo uu maaragtay ka dhigan karo policy jira so laga bilaabo shalay
waxaa already sidaan idin sheegay hadaayo Tom Homan ayaa mar kale ka hadlay arrinka isaga ah aad iyo aad ayuu u soo dhaweeyey in maxkamadda ugu sarreysa dalka ay mar labaad qodobkaasna u ogolaato Donald Trump iyo xertiisa marka labadaas qodob guulal waaweyn ayay u noqdeen inkasta oo dad badan oo ka soo horjeeda ay jiraan oo arrinkan wax ka qoray kuwa badan oo waxaa jiro dadka immigration advocateska ah u dooda arrimaha immigrationka dadka u dooda ayaa si fiican uga hadlay marka arrinkan isaga ah wuxuu keenay in laba guulo waaweyn uu Trump uu ka helo maxkamadda ugu sarreysa cases fara badan oo kale oo dhageysanayaanna way jiraan maadaama xilligii la xiri lahaa maxkamadda la joogo oo ay ka hadli doonaan ama ay go'aamo ka gaari doonaan wax ka soo saari doonaan laakiin so far hadeer shalay laba guulo waaweyn baa ka soo gaartay ninka odaga ah oo arrimihiisii dadka soo galootiga iyo immigrationka ku saabsanayd baa uu gaaray arrinkaasna sidaan idin sheegay Tom Homan iyo raggan maartay Steve iyo rag badan oo kala shaqeeya arrimaha immigrationka way soo dhaweeyeen waxaana ay u dhaaranayaan marka TPS programka ama temporary protected statuska lagala